kulanti waxaan wanaagsan daawadeen idin ahaantiinba halka aad naga daawanaysaan waa janalka Som TV Soomaaliya xarunta saddex ee magaalada Muqdisho kusoo dhawaada daawadayaal barnaamijka dabagalka wararka Soomaalida farmaajo dhaxalka ku wareejisay iyo Soomaalida farmaajo ka tagay waa laba kala duwan hay ugu eedeen dib u dhaca doorashada Soomaaliya farmaajo ayaa halkaas ku qoray jareerada Foreign Balance farmaajo wuxuu waqtiga ka dhamaaday February 8 2021 hadda laga joogo 3 bilood afartii sano ee uu madaxweynaha ahaa marka laga tago 3 bilood ee la soo dhaafay muxuu ku qaban karay hadduu yahay hogaamiye raba in dalka ka dhacdo doorasho jawaab ku saleysan malo ama qiyaas uma baahna saddexdaas bilood muxuu ku qabtay madaxweynihii ka horeeyay ayaa jawaab u ah Xasan Sheekh Maxamuud muddo celeedkiisa wuxuu ku ekaa September 10-keedii 2016 saddexdii bilood ee xigtayna waxaa la doortay 275 xubnood oo doorashadooda ay ka qayb galeen 14,025 ergo oo Soomaali ah oo ku kala noolaa gobolada dalka sidoo kale waxaa dhismay aqalka sare oo aan hore dalka ugu jirin 54 sanatar ee uu ka kooban yahay ayaa waxaa soo doortay baarlamaanada maamul goboleedyada December 2016 ayaa gabi ahaantoodba waxa la isugu keenay Muqdisho oo lagu dhaariyay saddexdii bilood ee uu farmaajo sharci darrada ku joogay bilaa Soomaaliya waxa uu qaaday talaabooyin kursi jacayl uu hagaayay oo ay ka dhasheen qax qabyaalad qaybsanaanta ciidanka qaranka iyo burbur dhaqaale warbaahinta dunida iyo tan gudaha waxay tabinayeen dhacdooyin foolxun kursi jacayl iyo kala tirisnimo December 2016 wararka warbaahinada ay tabinayeen waxay ahaayeen doorashooyinka ka qabsoomay gobolada dalka xildhibaanada la soo doortay iyo hambalyadooda ayaa socotay Muqdisho waxa ku soo qulqulay wafuud caalami ah oo doonayay inay marqaati ka noqdaan dimuqraadiyadda hana qaada ee Soomaaliya Jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa ugu hambalyeeyay gudoomiye ku-xigeenada ku guuleystay baarlamaanka maanta hadda Soomaalida waa lagu kala dhax jiraa ergeyga qadar ayaa qof iyo koox ula kulmaya sida inaan dalka dawlad ka jirin Afrika waxay soo magacawday ergeyga qaramada midoobay kaas oo la siiyay awood uu adeegsan karo ciidanka AMISOM arrimahan oo dhan ayaa natiijada siyaasadda qariska Turka ah ee farmaajo ku hagaya 4 sano ee la soo dhaafay ujeedka kaliya uu lahaa ayaa ah in xukunka uu iska haysto qiimo kasta ay ku kacdo iyo qar kasta uu qaranka ka dhaco aad ba u mahadsantiin daawadayaal ilahantiinba halka naga daawanaysan waa janalka Som TV Soomaaliya barnaamijku waxay la socodsiinayaan anigoo aadaday Arab nabadgelyo hadda maanta Soomaha wali aniga nidaamkii dastuurkan ku taaganahay challenge-ga inaan xalliyo rabana waa iga sii hor muuqdaayo qabyo qofkeeda dhameystir bilaash uma badhin wixii qabyada ahayo cawado dhan la su'aala cawado dhan su'aalaha la isku soo cidbuga isku soo wada celcelisay waa qortay kulli qabyadii iyo dhameystirkeedii ka hadlayaan wax cusub kama hadlayaan marka niyo wali waa ii muuqataa inaan meesha ku noqdo wixii dhameystiro oo hagaajiyaan rabaa haddii may inaga joog la Iiraan xarka koos ma ay anoo madaxweynahan ka joogay anoo madaxweynahan inaan ka joogo ii saalantahay